kulan wacan saaxiibada aynu jecelnahay oo ku soo dhawaada qisadii jaceyl ee Mahad iyo Madeeq qaybteedii 8aad balse intaan u guda gelin qisada muuqaalka laagsaar si aan u ogaano dadka xiiseynaya qisadani qaybtii hore waxa inoo joogtay Mahad oo xaafadii tagay si uu u soo arko jaceylkiisa una raali geliyo balse loo sheegay in ay magaalada ka tagtay Mahad markii loo sheegay Madeeq in ay magaalada ka tagtay waxa uu bilowday murug iyo isla hadal meel uu ka doono ayuu waayay wuxuu gaaray in uu naftiisa ku cataabo yaa mar kaliya ay tuso Mahad muhurda mana harsado wuxuuna go'aansaday in uu raadiyo gacalisidiisa uu isaga xumeeyay wuxuuna go'aansaday inuu cagta ka daba dhigo meel kasto ay cagta dhigto ilaa uu kala kulmayo waxaana loo sheegay magaalada ay u safartay isla markiiba wuxuu u soo qalab qaatay magaaladii ay iyadu joogtay wadadu dheer gaariguna socod yara intii wadada lagu jiray ayuu Mahad ku cataabay balse maba garanayo meel uu hagaago markuu u tago magaalada ugu dambeyntii wuxuu gaarigii cagajid u socdaba goor casir ay tahay ayuu soo gaaray magaaladii loogu sheegay in ay joogto gacalisidiisa isma waalin markii hore hotel ayuu degay wuxuuna wacay gabar ay Madeeq saaxiibo ahaayeen taasi oo joogta magaalada uu yimid wuxuuna sheegay in uu magaalada joogo isla markaana wuxuu ka codsaday in ay xaafada tagto oo ay qaab sir ah ugu soo sheegto xaafada ay Madeeq degan tahay iyo adreeska gurigeeda gabadhii ayaa xaafadii tagtay waxayna u sheegtay in ay u baahan tahay Madeeq waxaana la weydiiyay waxa ay ka rabto waxayna tiri halkaasi ayaa alaab la ii keenay qofkii wadayna waa uu noqday iyada ayaan ku dhihi lahaa gaari iso saar gabadhii durba waxa la siiyay lambarkii xaafada ay joogtay Madeeq iyo meesha ay ku taalo waxayna u sii gudbisay Mahad waa uu farxay wuxuuna hadda diyaar u yahay in uu la kulmo marwadii uu qalbigeeda jabiyay balse ma oga waxa ay ugu jawaabi doonto naftiisana cabsi ayay dareemaysaa wuxuu la kaashaday dad ay maalmahaasi meesha iska barteen waxaana loo sheegay xaafada ay Madeeq joogto xilli galabeh ayuu Mahad u soo dhaqaaqay xaafadii ay joogtay gabadhii uu hayaanka u soo galay waxa qalbigiisa ku jirta marka sidaasi u aragto dadka hortooda lagu qabso oo cafis ka dalbo sidaasi ayuuna go'aansaday wuxuu soo gaaray albaabkii xaafadii waa una garaacay waana laga furay Madeeq ma joogta ayuu weydiiyay mase wuxuu beesha ku dhaftay iyadoo barandada kursi ku fadhido sida bisid wax gaadiis ayuu inta talaabo dabacsan soo qaaday ayuu horteeda isku tuuray oo jilbaha dhulka dhigtay isaga oo madaxa hoos geynaya ayuu lugaheeda dhunkaday dadkii meesha joogay oo aan xaaladani waxba kala soconin ayaa yaab iyo amankaag afka kala qaaday iyagoo isleh war ninku miyuu waalan yahay waa maxay wax uu sameynayo Mahad indhihiisii ilan kuma harin oo indhihii ayaa casaaday oo barbararay wuxuu dib ugu qoomameeyay abaalkii loo galay iyo foolxumadii uu ugu abaalguday gabadhii naf iyo maalba u hurtay ifkana isaga ka dooratay alla Madeeq maxay sameyn doontaa oo maanta la gudboon halka waxa inooga qaybtii 8aad ee qisadii jaceyl ee Mahad iyo Madeeq la soco qaybtii xigta door Rabbi raali ka noqday daawada hadii aad nala soo gaartay gabagabada muuqaalka fadlan laag inoo saar muuqaalka siina sheer garay si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale